tartankani Ramadan Cup waxaa ka soo qayb galay 16 kooxood. Group A waxaa ku jiray New Star, Jazeera, Attack iyo Elman. Group B waxaa ku jiray Olympic, Muqdisho, Halgan iyo Midnimo. Group C waxaa ku jiray Ceel, Bariis, Al Naseeb iyo Boondere. Group D waxaa ku jiray Warta Nabadda, Cadowre, Al Furaad iyo Kasbintow. dhammaantood 16 kaas kooxood waxaa hadda maanta finaal ka taagan 2 kooxood. inta kale waxay ku soo hareen gruubaha iyo nagta. waxaa hadda finaal isku yimaaday 2 kooxood oo kala ah Olympic iyo Muqdisho oo isku jiraan group B. إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم فينالكني وفينال كيس الدحاد إن قبلنا ترتن كرمضان كاب سنة كدبو إن شاء الله تعالى وحرجينا إن كبد دونه كوحين وأقصد دونه كوحين أدوين إن شاء الله تعالى تصير رجينا بإذن الله الكريم. لبقد شو يولمبيك وحاس قف واحد يصعد على ساعة مقف كيس صعد على أنت أنك هو ليستا وحنسي دونه هديد يكفرحه إن شاء الله تعالى قف اللي بقى أو صعد على كرا أولمبيك يمقدشوا يهو لسنة في كوبكا tartanka Ramadan Cup ee loo qabto Ottawa Stadium. saadaalintoodu waa noo muhiim insha Allah ta'ala bin lil kareem. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.